بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله تعالى maantay barnaamijkeeni isbuuclaha jamcaha noo soo gari jiray waxa inoo muxuu marti ah sheekh ustaadka Ustaad Cabdiqaadir. إن شاء الله تعالى waxaan ka jeedinayaa dhammaan dadku inay ka faa'iideystaan si fiican looga faa'iideysto إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إن شاء الله حلقتان وحلقة ورسول سعين جرتي نادي أرض جامعة ومضى مركا waxaan u mahadcelinaa markuu ugu horeyso dadkii taabageliyey iyo dadkii ka qayb qaadanayay iyo sidoo kaleeta kaamiryahankii dhammaantoodii waxaa waaye waxaan leeyahay juhdi badan baad haysaan oo aad u qurux badan oo berituna idinka thawaabinayo insha allah si laba jibaara baan idin leeyahay. waxaan rabaa maanta haddii ilaah yidhaahdo inaan kaga warrama mawduuci kan bisha barakaysan haddii ilaah yidhaahdo qaar ka mida waxyaabaha ayda gooni ay la tahay. waxaa waaye waxaan rabaa inaan ka hadlana waa zakaatu lfitri ama si haddii loo fasiro ay soomaalida hore u dhihi jireen daqarsool la dhihi jiray. waxaan ugu warrama haddii ilaah yidhaahdo dhowr qaybood. qaybta koowaad xigmada loo jideeyey zakaatu lfitri. qaybta labaad waxaan ugu warramaynaa haddii ilaah yidhaahdo waxyaabaha tarqiibaadka ama waxyaabaha dhiirigelinayo in la sameeyo axaadiidka ku soo aroortay haddii ilaah yidhaahdo qaar ka mid a. kadib waxaan ka warramaynaa haddii ilaah yidhaahdo waxa la iska rabo in la bixiyo qadarkay dhan yihiin iyo sidoo kaleeta qaymo ma lagu bixin karaa mise lama bixin karo. qaybtii kale oo ah daqiiq ama waxyaabaha oo caadiga oo shiidan ma la bixin karaa mise lama bixin karo. qaybta ugu dambayso dadka Soomaalida sidaan ay ku yihiin waxa waaye wadad musaafir ah marka qof haddii waalidkiisu ka maqan yahay waalidkii xagga ma ka bixin karaa ama cagsi ama ardaygii asigoo meel kale joogo waalidkiisu ma u bixin karaa zakaatu lfitri. intaas iyo haddii ilaah yidhaahdo ayaan ka warramaynaa. qaybta koowaad haddii aan ka bilowno fadaa'isha waxaa ka mid a sida alimaam abu daawuud raximah allahu tacaala calayhi uu soo saaray xadiidkii ibn cabaas radi allahu tacaala canhu. ibn cabaas baa wuxuu yidhi farada rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam zakaata alfitri tuhuratan min allagwi waalrafathi. nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu farad yeelay zakaata alfitri wuxuuna u farad yeelay in laga daahiriyo dadka ee saa'imiinta ahaa lagwigii ay soo galeen iyo rafadkii ay soo galeen. kalaamulfaaxish baa la yidhahdaa rafadka ama alkalaamulbadii hadalka xun ayay soo galeen iyo waxyaabaha ka dhacay hafawaadka basharka wuxuu caado u leeyahay inuu hafawaad ay ka dhacaan marka waxyaabahaasi ayaa laga dahiranaya. markaasaa markuu saa yidhaahday wuxuu ku sii daray ibnu cabaas radi allahu tacaala canhu waardaahu tucmatu lilmasaakiin. masaakiintana waxay u noqonaysaa zakaatu lfitrida tucma ayay u noqonaysaa. marka waa xigmada loo jideeyey zakaatu lfitri waa in dadka loogu dhaqo waxyaabaha khalalka ka soo gaaray soomka dhexdiisu waxyaabahaas khalalkaasi loogu dhaqo iyo waxaa loogu talagalay in masaakiintana lagu quudiyo ayagana. marka labadaasi hadaf ayaa ka mid ah waxyaabaha in loo jideeyey zakaatulfitriga. midda kale waxaa waaye tarqiibaadka ku soo arooray waxaa ka mid ah sida alimaamu alxaafidu almaqdisi في كتابه الأحاديث المختار وصوصاري حديث جرير بن عبد الله البجلي وحجري رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهر رمضان معلق بين السماء والأرض. بش رمضان وحيكو حرنتهاي وحيقول حيساء دلك يعرك ولا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى إله الله مكريه لا إلا بزكاة الفطر. زكاة الفطر ما له كريه لا. حديث كان ضعيفة هذا دون صدق وعدي الإمام المناوي رحمه الله تعالى عليه لكن وحوت سنيا إن الاسكود رجلية إن لبحيو زكاة الفطر فائدة بدنا وإلا هذا هو فائدة أنصار شغني حكمة ديتي هراء حديث ابن عباس الصحيحها أبو داود صاري. حان كلا كورمنا دي له إرادو حيابها قفك صائم كائن بحيا لقرب زكاة الفطر يكون واجب إساء أرتمرك يكون واجب زكاة الفطر قف هيستا quudka ciyaalkiisii iyo quudkiisii wax ka faadil ah maalinta ee fitriga la joogo
laba arrin bay ku waajibtaa fitriga iyo waxay ku waajibtaa soomka marka culimmadu waxay qabaan soomka iyadoo lagu dhex jirin waa la bixin karaa maalintii ciid intaan salaada la tukanin waa la bixin karaa iyadoo waajib ay noqonaysaa maalinka ciid intaan la gaarin salaada in la bixiyo waajib ay noqonaysaa ka horna waa la bixin karaa Imam Abu Hanifa laakiin isagu wuxuu qabaa ka hor xitaa waa la bixin karaa buu leeyahay sababtoo ah law sabay ku waajibtaa sabab baa la haystaa oo wuxuu yiri badanka laga bixiyaa badankana mawjuud way buu leeyahay ka hor waa la bixin karaa isaga saas buu qabaa Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala alayhi jamii'an culimada Allah naxariisto marka maxaa la bixiyaa sida nabiga noo sheegay alayhi salatu wasallam xadiidka ibn Umar nabiga alayhi salatu wasallam wuxuu faradiyeelay zakat al-fitr buu faradiyeelay saac ayuu faradiyeelay nabiga alayhi salatu wasallam saacaasi marka waxa waaye shaciir buu noqon karaa timir buu noqon karaa ayuu faradiyeelay wuxuu ku faradiyeelay nabiga alayhi salatu wasallam ala al-abdi adoonka iyo xurka qofka iyo ninka iyo naagta sidoo kale ta iyo dadka weyn iyo dadka yarantuba marka wax la rabo in la bixiyo waa saacaasi marka waxa waaye waa 4 madal ama 4 galaas ama 4 koombo soo taqaanid qof waliba 4taasi koombo baa la bixinaa hadii xogaa la casriyayna waxay noqonayaan sida ay dadka qaar ay sheegeen 2 kiilo iyo bar ayuu noqonaa bay leeyihiin min ghalib qutil baladna waa laga bixiyaa qofku wuxuu cuno inta qaalibka ayaana laga bixiyaa marka qofka marka si uu warintaas u gaaro waa in maxay ahayd 4 galaas marka koobaad uu saaro si marka uu ogaado inta ay kiilay noqonayaan marka qof waliba waxa laga rabaa 4 galaas ama 4 koombo ama 4 suus ayaa qof waliba waxa laga rabaa 4 suus laga rabaa suuskana marka waxa la yiraahdaa waa 4taasi koombo ayuu noqonayaa ama 4taasi madal qof waliba intaasi inuu bixiya waxa kale soo weydiinayna marka qofka ma daqiiq ma bixin karaa mise ma bixin karo yani daqiiq waxa la yiraahdaa waxa shiidan waxa horta waajibka in la bixiyo waa in xubub ay ahaadaan marka aimada ama culimada ahlul cilmiga cilmiga labada Imam Malik wuxuu bedel ahaan loo bixin karaa laakiin Imam Abu Hanifa iyo Ahmad waxay leeyihiin asal ahaan baa loo bixin karaa iyagoo yaalan baa la bixin karaa buu leeyahay meesha marka waxaan fahnay lama bixin karo iyo waa la bixin karaa lama bixin karo Shaafici uu qaba iyo waa la bixin karaa dadka dhahaya laba u kala jabaan bedel ahaan loo bixin karaa Malik baa qabo marka zakatul fitriga ay ku waajibtaa inta badan Soomaalida waxaan niray waa dad musaafir ah ama dad waxa way walaalo ku nool meel kale si kala aada arday baa jira oo soo baxay oo gobol ka soo tagayo oo magaalada imaanayo ama cagsi ama qof magaalada ka tagayo gobol aaday baa jira marka zakadiisi marka haduuna waxba haysanin ardaygaasi ama wiilkaasi zakada yaa bixinaya su'aasha markii ay soo weydiino waxa meesha imaanaya culimada nadaabid yar bay sameynayaan waxay leeyihiin intaan la dhihin ardayga ku waajibaysa intaan la dhihin ama wiilka ku waajibaysa ama waalidka ku waajibaysa waxay leeyihiin waxay ictibaarinayaan ay leeyihiin zakada marka koobaad inta yaa bixinayo intaan la isweydiin marka waxay leeyihiin waalidka marka koobaad ma qofka muzakiga waalidka may ku waajibtaa oo ma waalidka laga rabaa inuu bixiyo oo kadib marka waladkii ama canugii bay u soo guurtaa oo laga bixinayay mise marka hore waxay ku waajibtaa qofka laga bixinayay oo waladkii ahaa kadib ma waalidka u guurtaa marka inuu bixiyo darteeda ugu guurtaa labadaas oo la isweydiinayaan laba qorba ku jirto marka culimada qaar waxay yiraahdeen markood waxay ku waajibtaa muzakkiga ku waajibtaa oo waalidka qofka zakayna waalidka ku waajibtaa haddii marka la yiraahdo muzakkiga ku waajibaysa hadii la yiraahdo wiilka in laga idin weydiiyo ma loo baahno gabadh in laga idin weydiiyo ma loo baahno waalidka asaa wixii soo baxsanayo haddii laakiin la yiraahdo waxay ku waajibaysaa muzakka anhu qofka laga zakaynayo oo waalidkii ku waajibaysa hadii la yiraahdo marka hore kadibna waalidka u guuraysa hadii la yiraahdo asoon laga idin weydiin waxba lama bixin karaa soo baxayso waxa marka tan ka farcamayo wax la bixinayo ilaa waxa la ictibaarinaa niray ghalib qutil balad la ictibaarinaa niray wax loo ictibaarana marka ma waalidka mise hadan waxa loo ictibaarinaa wiilka loo ictibaarinaa gabadha tan waxay u khuduucaysaa masalada aan taswiir nabiga aydan u khuduucaysaa oo ah hadii la yiraahdo marka horeba waalidka ay ku waajibaysa hadii la yiraahdo quudkiisi asaga baxsanayo waalidka ayuu bixinaa hadii la yiraahdo marka koobaad wiilka ay ku waajibaysa ama gabadha ay ku waajibaysa zakada hadii la yiraahdo marka kadib waxay u guuraysaa waalidka u guuraysaa hadii la yiraahdana markaasina waxa soo baxaya in markaasi ghalib quuti balad oo wiilka meesha joogo loo ictibaariya ayaa soo baxayso ayadana labadaas marka qaab saas isku ratimayaan ayagana intaas hadii la yiraahdo waxaan ugu dhamaanay qayb zakaat fidri wax yar marka waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto hadana
ciida ciid la yiraahdo ciid alfitriga ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamtiisa waxaa ka mid ah inuu noo jideeyey 3 ciidood 2 ciidood waa sanawi waa ciid alfitri ciid aladxaa ciidna idin waxaa la yiraahdaa ciid sanawi waaye waa maalinta jumcada saddexdaasi waa 3 ciidood oo aad u qiimo badan ilaahay agtiisa ka qiimo badan waaye ciid la yiraahdo ciid alfitri ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dawdhigay rukni min arkaan alislaami sidoo kale ciid kale ciid alfitri ciid aladxaa la yiraahdaa iyadana rukni min arkaan alislaam baa la dawdhigay oo ah midda koowaad fitriga waxaa la hordhigay ramadaankii ama soomkii midda kalena idan xajkii baa ka horeeya marka laba munaasabood bay ka daba imaanayaan labadaba oo aad u qiimo badan oo laba rukni kala ah marka nicamta ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waxaa loo baahan in loogu shukriyo loogu mahadceliyo nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu shukriyo way sugnaataa haddii ilaahay subxaanahu loogu kufriyana idan way tagtaa axkaam yaraan sheegay haddii ilaahay yiraahdo axkaamta ciida waxaa ka mid ah ciid alfitriga oo kaleeta labada mid walba axkaam gooni bay leeyihiin laakiin annaga hadda ciid alfitriga haddaan ka bilaawno ciid alfitriga axkaamteeda waxaa ka mid marka hore in xogaa yar salaadii la daahiyo oo xogaa yar 2 saac la gaarsiiyo si xogaa qofku wajibaad yar ugu soo cuno timraad iyo xogaa shaah wuxuu soo cabi karo oo uu soo isticmaalo marka kadib musallaha uu yimaado waxaa kaloo ka mid ah aadaabteeda marka ciida markii loo soo baxayo wada markii lagu yimaado in wada kale lagu baxo si marka dadkii u arko si salaamta u badato si berito wadooyinkaas in marqaati qofka ugu noqdo maalinta qiyaamo si wadadii uu maray marqaati ugu noqoto salaada markii la galo kaleeto inta badan culimadeena waxay sameeyaan iyo dadka tukanaayo takbiiraadka oo kaleeta midna waa 7 midna waa 5 midda koowaad oo kaleeto waa 7 takbiiradood midda labaadna waa 5 takbiiradood markay tukanayaan Allahu akbar markay yiraahdaan inta badan waxaad moodaa iyagoo aamusan inay takbiirsanayaan Allahu akbar bay dhahayaan lama rabo marka qofku markuu Allahu akbar uu yiraahdo inuu la yimaado subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar inuu yiraahdo hadana mid labaad Allahu akbar ku yiraahdo inuu ku socdo loo baahan yahay lama aamuso mana la isku xijiyo xiriirna ma ahan taasina waa inay tambiyaadka ka mid tahay waxaa kale jira marka waalidiinta oo kaleeta maalinta ciid markii la gaaro waxaa jira waxyaabo badan oo waxaa jira oo la tarax tagayo inkastoo imaamuur tahay maalinta in farxad la muujiyo laakiin aad baa loogu sii badiyay waxyaabo dhacaya waxaa ka mid ah in maxayad fisqi badan imaado waalidiinta qaar in maxayad awlaadii ay u gadaan dhar oo maxayad aan munaasib ahayn inay siiyaan oo kaleeta busooladooyin oo kuul ku jirto oo dad lagu dhifanayo waxyaabo badan marka waxaa ka dhalanaya meeshaas marka dhibaato marka waxaan dhihi lahaa oo maxaa la jiray walaalkayga iyo walaasheeda qof guriga waa inuu noqdo guri muslimiin inuu noqdo inuu ka muuqdo qofka sidiisaba wixii marka gurigiisa uu sifada uu leeyahay ay awlaadiisuna yeelanayaan sida la dhihi jiray xigmada ahayd man shabba ala shay shaba alayhi qofku wuxuu ku barbaarbo ku odiyo ku duqooba marka in marka waxa loo baahan yahay qofka gurigiisa guri muslimiin inuu noqdo sifadaasna uu yeeshto haddii marka guriga dadkiisu ay dad xun yihiin canugu soo baxayna dad xun buu noqonayaa marka waxay yiraahdaan idha kana rabbul bayt bitabli qari'an fashimatu ahli albayt kulluhum arqsu hadii dadka maxay ahayd oo ahli albaytka hadii ay garaacayaan durbaanku dadka guriga jooga dhamaantood ayagana waxay sameynayaan tamaayul ama raqsi bay sameynayaan isjilaciyaan baa ka dhalanayso guriga marka muslimka sifaad buu leeyahay sifaadka waxa kamid ah in wixii dawaabida sharciga ahayd la ilaaliyo xukuumadu waxay dhihi jireen ala qadri ahli alazm ta'ti al'azaimu wa ta'ti ala qadri alkiram almakarim hadba sidii azmiga qofku uu yahay ayaa waxay ku imaanaysaa makaarimtii qof makaarimta say tahay baad karaamada ku timaada ala qadri ahli alazm ta'ti al'azaim wa ta'ti ala qadri alkiram almakarim marka waxaan dhihi lahaa oo aan dardaarmaya waalidiinta mas'uul baatihiin baritan waalidin weydiin doona goorta aan dhimanayna ma garanayno marka qof waliba inuu ogaado in su'aal ay ka dambeyn doonto maalkaas waa laga weydiin doona meesha aad ku bixisay meesha aad ka keentay inaan ka fikirno marka baritu maxaan jawaabi karnaa saacada qiyaamana aydan waa iska imaanaysa idan la ogaan sidii Ilaahay uu jiray فلينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءهم ذكرهم إلهي سبحانه وتعالى ولو وحكى لم يسوغيان إلا إن أتماده ساعة القيامة إذا سكدي أتماده هذا أتماده مركاسي مجرته وحواني مركا إيمانه marka qof waliba ha ka dhigto wuxuu sameeynayo sharciga muxuu ka qabaa ha ka fiiriyo ina ka fiirin canugaga muxuu jecel yahay gabadhaad maxay jeceshahay intaasaan gabagabana qolo qowli hada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh